Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena meel kastoo aad joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha. Waxaanu ku eegi doonaa qodobo dhowr ah oo ku saabsan dunida kubadda cagta. Haddii aad nagu cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saar. Siina share garay saaxiibadiinana la wadaaga dhammaantiinba. aanu ku bilownay kooxda Barcelona ayaa si lama filaan wada hadallo la furtay xidiga kooxda PSG ka tagay ee Angel Di Maria. Xidiga reer Argentina ayaa ogolaaday inuu hal sano u saxiixo kooxda Barcelona kadib markii uu wada hadallo la qaatay mas'uuliyiinta kooxda. Angel Di Maria ayaa isaga tagay kooxda PSG kadib markii uu dhacay heshiiskiisa uu kula jiray kooxda reer Faransiya dhamaadkii xilli ciyaareedkan. Xidiga garab ka ciyaara ee Angel Di Maria ayaa si weyn loola xiriirinayay kooxda Juventus kuwaas oo doonayay saxiixa xidiga si ay u xoojiyaan kooxda. Laakiin Barcelona ayaa u muuqata kuwa Juventus ku garaacay saxiixa Di Maria iyadoo uu Xavi doonayay saxiixa xidiga si uu ugu xoojiyo kooxdiisa. Xavi ayaa Di Maria u doonayay inuu ku buuxiyo booska Dembele kaas oo isaga tagay kooxda isagoo heshiiskiisa kooxda dhici doono toddobaadka dambe. Isla xidiga Liverpool ee Sadio Mane ayaa lagu soo waramayaa inuu xidiga Thiago Alcantara ka dalbaday inuu galo gurigii uu ka degnaa xidiga magaalada Munich markii uu joogay Germany. Waxaa la rumaysan yahay inuu Mane ku dhow yahay ku biirista kooxda Bayern Munich isagoo haatanba heshiis shakhsi ah la gaaray kooxda. Liverpool ayaa Bayern ka diiday dalab rasmi ah oo ka gudbisay saxiixa xidiga, laakiin Bayern ayaa la filayaa inay dalab cusub kula soo laabato Liverpool. Waxaa haatanba jira warar sheegay inay Bayern Munich diyaarinayso dalab lacageed oo 35 milyan oo euro taas oo ah mid ku dhow lacagta ay Liverpool dalbanayso. Wargeyska Mail Online ayaa sheegay inuu doogo gurigii uu xidiga Spain ka degnaa magaalada Munich. Xidiga Sadio Mane ayaa Liverpool u dhaliyay 120 gool oo 169 kulan oo u saftay Liverpool, waxaana uu kula guuleystay koobo badan oo ay ka mid yihiin Premier League, Champions League, FA Cup, Liga Cup iyo Club World Cup. Isla dhanka kale kooxaha Manchester United, Arsenal iyo Tottenham ayaa dhammaantood lagu soo waramayaa inay diideen fursad ay kula soo saxiixan lahaayeen weeraryahanka Juventus ee Paulo Dybala. Xidiga reer Argentina ayaa isaga tagay kooxda Juventus xagaagan kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula jiray kooxda. Xidiga 28 jirkan ayaa helay xiiso ugu imaanaya kooxo badan, waxaana la filayaa inuu ku biiro koox weyn. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Daily Mail, Dybala ayaan ku biiri doonin kooxaha Man United, Arsenal iyo Tottenham suuqa xagaagan. Wararka ayaa sheegay in ay saddexda kooxood ee ka ciyaarta Premier League iska diideen inay helaan saxiixa xidiga boosaska kala duwan ee weerarka ciyaari kara. Isla wargeyska ayaa sheegay in sababta ay u diideen saxiixa xidiga ay tahay mushaarka uu xidiga dalbanayo oo ah mid dhan 180,000 oo jini toddobaadkii. Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleystay saxiixa xidiga khadka dhexe ee kooxda Monaco Aurelien Tchouameni sida uu sheegay saxafiga caanka ah ee Fabrizio Romano. Real Madrid ayaa wada hadallo kula jirtay kooxda Monaco maalmihii la soo dhaafay iyagoo doonayay inay xidiga Tchouameni ka dhigtaan saxiixoodii labaad ee suuqa xagaagan. Fabrizio Romano ayaa sheegay in wada hadallada ay kooxda Real Madrid ku doonayso xidiga Tchouameni maraya marxaladihii ugu dambeeyay. Isla saxafiga ayaa sheegay in labada kooxood haatanba ku heshiiyay qiimo lacageed oo dhan 8 milyan oo euro kuna kacaysa 100 milyan marka lagu daro gunooyinka. Xidiga Tchouameni ayaa qalinka ku duubi doona heshiis uu ku joogi doono Real Madrid ilaa xagaaga 2027 taas oo la macnaha inuu saxiixay heshiis 5 sano ah. Xidiga Tchouameni ayaa iska diiday kooxaha Liverpool iyo PSG kuwaas oo diyaar u ahaa inay helaan saxiixiisa kuna xoojiyaan kooxdooda. Sidoo kale wargeyska Daily Mail ayaa sheegay inay maamulka Manchester City ay qorsheynayaan inay la soo saxiixdaan xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal ee Bukayo Saka inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Bukayo Saka waa mid ka mid ah da'yarta Ingiriiska ugu muhiimsan waqtigaas, sidoo kale waa mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu muhiimsan Liverpool. Wargeyska ayaa tilmaamay in tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola uu maamulka Manchester City ku codsaday inay la soo saxiixdaan Bukayo Saka xagaagan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Sterling uu ku dhow yahay inuu kooxda ka tago. Wargeyska ayaa tilmaamay in Manchester City markii hore ayna xiiseynaynin inay la soo saxiixdaan Bukayo Saka, balse waxaa sare u kacay hadal hayntiisa suuqa kala iibsiga sababo la xiriirta xaaladda uu hadda kaga sugan yahay Arsenal maadaama uu dhacay qandaraaskiisa xagaaga dambe iyo rabitaanka xidiga reer England ee ah inuu tijaabiyo khibrad cusub oo meel kale ah. Maalmaha soo socda ayaa la arki doona loolan xoogan oo u dhexeeya kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo ku aadan saxiixa Bukayo Saka. Haddii maamulka Arsenal uu ku guuldareysto inuu qandaraaska u kordhiyo xidiga. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.